ahlu sunnada maanta jirta maxaad ka aaminsan tahay maxayse ku kala duwan yihiin ahlu sunnada maanta deegaanada galmudug qaybo ka mid ah ka dagaalantay iyo ahlu sunnadii al-shabaab halkan ka xoraysay qaybta hoose ee commentiga aragtidaada waad inoogu reebi kartaa muuqaalkan intaan kula wadaagin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto si uu u gaaro saaxiibo fara badan una sheer garay saaxiibada qiimaha leh ee Facebook kugu weheliyay si aynu u helno saaxiibo u qalbi furan sida adiga oo kale hogaanka ahlu sunna oo cadeeyay hadafkooda xilli macallin maxamuud uu sheegay in ahlu sunna aysan ku dagaalameyn caqiido oo ay ku dagaalamayso inay hesho kuraas yaala galmudug iyo kuwa federaalka haddaba ahlu sunna oo ay horay dad badan uga aaminsanaayeen in ay markaas ku dagaalamayso kuraas siyaasadeed ayaa hadalkan waxa uu ku soo aaday xilli loo baahnaa xilli tiro yar oo dad ah ay aaminsanaayeen in ahlu sunna ay markaas ku dagaalamaysay caqiido haddaba daawade adigu maxaad ahlu sunnada haatan bohol ku sugan ee uu Sheekh Shaakir horboodayo ka aaminsan tahay hogaanka ugu sareeya ahlu sunna macallin maxamuud sheekh xasan oo saakay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay markaas in ahlu sunna ay ku dagaalamayso arrimo siyaasadeed Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in ahlu sunna ay tahay dawlad gaar ah dad badan ayaana la yaabay in ahlu sunna markaas lagu tilmaamo dawlad gaar ah walow macallin maxamuud oo sidoo kale xusay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay iyagu yihiin kuwo ka tirsan ururka al-shabaab waxa uu macallin maxamuud soo hadal qaaday xildhibaanka kursiga hob 147 ku matala baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Mahad Maxamed Salaad Mahad waxa uu ku sheegay macallin maxamuud inuu yahay xubin ka tirsan ururka al-shabaab isla markaana uu deegaanada galmudug iyo magaaladan Gurceelba uu ku soo duulay macallin maxamuud ayaa markii ugu horeysay si kulul uga hadlay dagaaladii Gurceel ka dhacay ee dhexmaray hogaankii ahlu sunna iyo ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug oo isku dhinac ah wadaadku waxa uu sheegay in ahlu sunna ay ku dagaalamayso siyaasad iyada u gaar ah waxa uuna sheegay in haddii ay yihiin ahlu sunna in ay doonayaan in markaasi siyaasadda galmudug iyo tan federaalkaba wax laga siiyo Sheekh Shaakir ayuu ku tilmaamay inuu weli yahay ra'iisul wasaaraha ama madaxa xukuumadda maamul goboleedka galmudug waxa uuna macallin maxamuud meesha ka saaray in ahlu sunna ay ku dagaalamaysay caqiido kadib hadalkii uu warbaahinta mariyay macallin maxamuud hogaamiyaha guud ee ahlu sunna waxa deegaanka bohol laga dareemayaa markaasi kala fur ciidanka bohol joogay markaasi ku yimaaday waxa la inoo sheegay in ay haatanba markaasi deegaanka bohol ay ka soo dhaqaaqeen tiro ciidan ah oo horay uga tirsanaa hogaanka ahlu sunna walow ciidamadaas horay loogu sheegay inay ku dagaalamayaan caqiido balse markii ogaadeen in ahlu sunna ay ku dagaalamayso markaasi arrimo siyaasadeed kuraas gaar ahna ay doonayso waxay ciidamadaas go'aansadeen in ay deegaanka bohol isaga soo tagaan oo haatan ayay markaasi tuulooyinkii ay horay uga tageen ku soo noqonayaan deegaanka bohol waxa haatan ku sugan generaal laba afle oo ah taliyaha guutada 6aad ee qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ganacsado lagu magacaabo Xaashi Carabay waxay u joogaan in ahlu sunna ay ku kala diraan deegaanka bohol oo ay haatan ku sugan yihiin macallin maxamuud hadalkiisa waxa siyaabo kala duwan uga hadlay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool deegaanada galmudug waxaana haatan moodaa in ahlu sunna sideedii hore ay ka sii wiiqayso maadaama ahlu sunna ay cadaysay bayaankeeda kaga aadan galmudug iyadoona sheegtay in kuraas gaar ah iyo markaasi dana siyaasadeed ay ka wadatay dagaaladii ka dhacayay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud haddaba daawada ilaa iyo dhamaadka muuqaalka haddii aad inoo wehelisay ahlu sunnada maanta jirta maxaad ka aaminsan tahay maxayse ku kala duwan yihiin ahlu sunnada maanta deegaanada galmudug qaybo ka mid ah ka dagaalantay iyo ahlu sunnadii al-shabaab halkan ka xoraysay qaybta hoose ee commentiga aragtidaada waad inoogu reebi kartaa haddii aad ilaa iyo dhamaadka muuqaalka inoo wehelisay fadlan muuqaalkan like saar si uu u gaaro saaxiibo fara badan una sheer garay saaxiibada qiimaha leh ee Facebook kugu weheliyay si aynu u helno walaalo u naxariis badan sida adiga oo kale daawashada muuqaalkan ayaad ku mahadsan tahay magacaygu waa Cabduqaadir Cabdullaahi Siisi